dalka Jarmalka oo dhaca bartamaha qaaradda Yurub isla markaasina xuduudo leh wadamo badan oo caalamka dhaqaalahooduna aad u sareeyo ayaa waxaa muddooyinkii u dambeeyay ama sanadihii u dambeeyay ku soo galayay qaxoontinimo dad aad u tiro badan oo ay ka mid yihiin dadka Soomaalidu. wadamada ay ka soo haajireen dadkani qaxoontiga ah ayaa waxaa intooda badan ka socda colaado iyo waliba dagaalo sokeeye, halka dhanka qaaradda Afrikana ay ka socdaan macluul iyo waliba abaaro, taasoo oo sababtay in dhalinyarada iyo bulshaweynta qaaradda Afrika ay usoo boqolaan wadamada Yurub si ay u raadsadaan nolol ka duwan nolosha ay hadda ku nool yihiin. sanadihii u dambeeyay waxaa soo badanayay qulqulka soo galooti tiro badan oo ka soo hayaamay qaaradda Afrika, wadamada Carabta ee dagaalada iyo colaaduhu halakeeyeen iyo waliba Yurubta saboolka ah. inta badan dadyowgani oo u soo safra Yurub soona jeexa biyaha caalamiga ah ayaa waxa ay jidkaasi kala kulmaan dhibaatooyin aad u tiro badan, isla markaasina sababa in ay noloshooda ku waayaan. biyaha khatarta ee u dhexeeya Afrika iyo Yurub ayaa ah goobta ugu dambeysa ee safarkaasi dadka soo galootiga ku soo gabagabeeyaan iyaga oo halkaasi ka soo gala wadanka Talyaaniga. We are going to hand you over to the authorities, immigration in Italy. After medical checkup, they will do registration and they will send you to a welcoming center where you will stay, where you will eat, and they will give you some clothes. But once we arrive to the port, our responsibility is over. We leave you there and we go back to the sea. We are going to go back to recover more people like you, risking their life to cross the sea. Okay? So try to eat everything you can because you need to be strong to survive over there. Life is difficult, it's going to be difficult. Try to find nice people to help you. Good luck and take care of yourself. Okay now. Yeah, it's just impressive. The place is very beautiful. Yeah, I'm happy. And I thank God for that. To see Italy right now, that makes us very happy. That will make us so happy to forget about all the pain with us. My friend, respect. Oh, I'm feeling good. I'm happy. I'm very, very happy. I'm very, very happy. Thank you. I'm very happy, man. Yeah, thank you. safarada iyo boqolkaasi dheer kadib qaxootiga nolosha u soo biday qaaradani waxaa hortaala nolol noocyo kala duwan. dhanka kale dad badan oo ay Soomaali ka mid yihiin ayaa qaaradan Yurub ka soo gala dhanka Turkiga iyaga oo soo gaadha wadanka Greece, halkaasi oo ay uga soo kala safraan guud ahaan wadamada qaniga ah ee dalkan Yurub si ay u raadsadaan nolol ka duwan noloshii ay hore ugu noolaayeen. inkastoo laga tiro badan yahay, waxaan indhaha laga qarsan karin jiritaanka ururo iyo kooxo ka soo horjeeda dadkani soo galaya dalkooda. dalka Jarmalka oo ku yaala bartamaha qaaradda Yurub ayaa soo dhaweeyay sanadihii u dambeeyay qaxoonti aad u tiro badan, iyaga oo qaybo ka mid ah bulshaweynta dalkani Jarmalku ay si gacmo furan bulshadaasi ugu soo dhaweeyeen gudaha dalkani. dhanka kale waxaa waqtigaasi Germany ka dhacay dibadbaxyo lagaga soo horjeedo qaxoontiga soo galootiga ah. Oder die wollen Deutschland kaputt machen, mit Absicht kaputt machen. Unsere linke Regierung. Das Mischvolk. Ne, die wollen das Mischvolk, die wollen, wie Sie schon sagen, ich kann es Ihnen nicht sagen. What is Mischvolk? What does that mean? Der Deutsche soll aussterben und so lieber Wie es in Amerika ist. mischen alles. Land, ne? Ja, genau. Mixing. si kastaba ha ahaatee dadka qaxoontiga ah ee soo gala dalkani Jarmalka ayaa waxaa loo sameeyaa waxbarasho, caafimaad iyo weliba hoy bilaash ah, iyaga oo isku daya inay intooda badan ka mid noqdaan bulshada dalkani.
وأحمد هند قريب بقية تلفزيون كعالمي Ariel TV wararka qaaradda Yurub